السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبي يا سو dhawaada ku soo dhawo channelkeena fadlan hadii aad nagu cusubtay subscribe inoo saar videoga like inoo dhis uu meel dheer inoogu tago dad kalena uga faa'iideystaan. Maanta waxa sameysanaynaa hair mask waa routiinka jimcaha. Marka videogan waxaan duubay jimcihii intaas inaan cod saaro baan xogaa ka yara mashquulay. saasuu inoogu soo baxaya insha Allah waxaanu ka sameynay baa guda gali doonaa haddii timu ka go'ayana waad ka faa'iideysan kartaa. Halkan waxaan ku haysanaa xabad baamiye ah iyo xabad basal aan soo jarjarnay biyo dabka soo saaranay. waxaan ku darsanay intii aynu haysanay. halkan waxaan ku haysanaa flaxseed ama qoondar ama saliid saa u taqaanid xulbad iyo karkade. intaas isku darsanaynaa kadib wasku walaaqaynaa dabka cabaar yar adigu ilaa intuu diin iskaga noqonayo oo uu ka dardareerayo maadaama meesha baamiye iyo qoondar marayaan baa sugeynaa insha Allah. inta kadib saas inoogu soo baxay waxa daayimadu iska yaal meel si uu qaboobo. kadib waxaan ku soo darsanaynaa cilaankaas iyo qasil yar. cilaanku aad ugu fiican yahay timaha go'aya sidoo kale wuxuu yeelaa cuf yacniga timaha waxoogaa tarantooda kordhiya. dadka isticmaalay baa faa'iidadiisa ogaan kara aad iyo aad buu fiican. anaga laba joor timo go'itaan side iga sameeyeen aad buu i caawiyay. yacniga waana inaad xil walba week hal maalinta aad isticmaashid waqti maalinteeda waa inaad isticmaashaa jimcaha oo kale. jimca kasta waa inaad u samaysataa. laakiin hadda wixii hal mar baa isticmaalaya de natiijo ka heli maysid. haddaad dhowr week isticmaashid timaha go'ista uu ka joojinaya. sidoo kale waxa iyana timo go'ista u fiican batarka ama burcadka aad buu u fiican yahay timaha go'aya. labadaas shay baa aniga aad bay caawiyeen. waxyaabaha timo go'ista keeni kara waxa kamid ah inuu qofku vitamin D-giisa uu leeyahay ama uu yar yahay. Soomaalideena aad baa vitamin D-geena u hooseeya because kuriga hadba la iskaga jiraa qoraxda inta u baxda ama qaadata baa iska sababaha sakiin. hadda qof walba hadduu vitamin D-giisa cabiro wuxuu noqonayaa uu hooseeya vitamin D-geena. waxyaabaha keena waxa kamid ah bay kamid yihiin sidoo kale hooyadu markay nuujinayso 6 bilood oo u horeeya timuhu way ka go'aan aad bay uga go'aan. intaan dadku isku mid ahayn waqtiyadan aan isku mid ahayn waxa laga yaabaa ilmo inuu ka go'o ilmana aan ka go'inin. halkaas waxaan ku soo shubanay 2 qaado ama ilaa 3 qaado oo batar ah ama burcad ah baan ku soo darsanay. saas inoogu soo baxeen kadib waan marsanaynaa saacad baad ku haynaysaa. natiijadiisana insha Allah waad arki doontaa goorta dhowr week isticmaashid. waana inaad joogtaysaa haddii aad wax rabtid inaad natiijo ka heshid. haddii aad halkaan nala soo gaadhay waxaan kaa codsanayaa inaad videoga like inoo saarto sidoo kale subscribe inoo dhawdo nagu soo biirto insha Allah wax badan baa kala faa'iideysan doonaa.